adduunyada xaaladeeda waa sidaad isaga joogtid unbaa laguu sheegayaa war aad ka naxadid run ahaantii oo aadba ku sigatid inaad moobilka jebisid sababtoo ah ilaahay uguma talagelin adduunyada tan in lagu raaxaysto daar raaxa ma ahan qof walba maalin unbaa kafantiisa la jeexjeexi doonaa oo lagu hagaajin doonaa run ahaantiina adduunyada tan uu kala bixi doonaa kafan cad wax alla wuxuu hanti lahaa wax alla wuxuu awlaad dhalay haba yaraatee wax raacayo ma lahan waa loo qubaynayaa baynamaa uu ahaan jiray mid isaga qubaysta madaxaa loo dhaqayaa baynamaa uu ahaan jiray mid madaxiisa dhaqda dharkaa laga siibayaa halka uu ka ahaan jiray mid dharkiisa bixiya wallaahi waa xaqiiqo maalin ayaa ku soo mari doonto anna isoo mari doonto run ahaantii korkeenna biyo lagu shubayo madaxa naloo dhaqayo jirka naloo dhaqayo oo aynan wax dhaqdhaqaaqay xarakaada lahayn wax isdhaqaajina aynan lahayn kafanna nagula duubi doono kafan cad sidee nacnacoo kale dhinacyada markaa nagala xidhi doono wixii markaa ka sii dambeeyana waxaana loo qaadi doonaa un qabriga oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa wadicat اljanaazatu haddii janaasada la dhigo bimacnaa janaasada hadda waxaa laga wadaa meydka naftigii ayaa laga wadaa marka meydka la diyaariyo diyaarintiisa waxaa ka mid ah kafantii iyo habayntii hadda aan ka soo hadlaynay kafankii markii lagu xiro wakadaalika maro weynna dusha laga saaro markii intaa la sameeyo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam isagoo sii wada wuxuu yidhi ragguna ay ku qaadaan garbahooda markaa maxaa dhacay markaa run ahaantii wuxuu u hoyday gurigiisii xaqiiqada ahaa oo wuxuu u galayaa qabri ninkii shaacirkaa waatuu lahaa تذكر وفكر بالذي أنت صائر إليه إن كنت ممن يفكر فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تضوى إلى يوم تنشر وحوليه فكر حصوصه فكر waxaad ku dambayn doontid haddaad ka mid tahay dadka fikira waxaa laga maarmaan ah maalin inaad u ahaatid godkaasoo lagugu duubi doono ilaa maalinka qiyaamaha maalinka addoommada lasoo shirinayo inta laga gaaro god lagugu duubi doono runahaantii walaalayaal waxaa isweydiin leh oo xusid mudan qofka marka la aaso dadkuna ay qabriga ka soo baxaan mid dumar uu uga soo baxo maxaa dhacay nebigu sal lla alay slam wuxuu yidhi sanqartu wuu maqlayaa dadka sii tegayo kabahooda qarcani cali wuu maqlayaa kadib waxaa u imaanaya malaa'igtaa su'aal bay weydiinayeen man rabbuka man nabiyuka wamaa diinuka saddexdaa su'aal ayaa la weydiinaya hadduu yahay qofka mid wanaagsan oo uu ka jawaabo uu yidhahdo rabbiy allah nabiyi muxamed diin alislaam allah subxaana wa tacaala ayaa sugaya dadka wanaagsan sidaa hadduu uga jawaabo waxaa la yidhi dhawaq ayaa xagga sare ka yeerayo dhawaqaasoo leh an sadaqa cabdii addoonkayga run ayuu sheegay ee qabriga ha looga dhigo beeraha jannada ka mid ah jannadana albaab ha looga soo furo dhawaqaa ayaa xagga sare ka yeerayo kadibna jannada ayaa looga furiyaa albaab qabrigana beer jannaad ayaa looga dhigayaa yaa salaam allow qabrigeenna ka dhig beer jannaad kadib waxaa u imaanaya nin qurux badan ninka ayuu leeyahay man ant fa wajhuka aladii yajii'u bilkhayr wejigaaga waa nin khayr ka muuqdo kumaa taha ayuu leeyahay amaa ruuxi xumaa su'aalihii ayaa isna la weydiinayaa waxaa lagu leeyahay man rabbuka malaa'igtii wa nebiyuka wamaa diinuka diintaadu waa tee iyadoo si argagax ku jiro loo weydiinayo
marka ayuu ka jawaabi kari weynaya laa adri ma garanayo sida ayuu ku jawaabayaa. malaa'igta miyay u naxariisanaysaa? waa maya. marka ayaa waxay la dhacayaan dubbe ayay la dhacayaan, dubbe aad u weyn ayay la dhacayaan oo gebigiisaba wuxuu u noqonayaa carro ayuu noqonayaa. dubbaha ayay la dhacayaan. nebiga sal ly slam wuxuu yidhi qayladiisa khalaa'iqdoo dhan way maqlayaan, insiga iyo jinka mooyaane. hadday maqli lahaayeenna waa ay dhiman lahaayeen. subxaan allah sida ayaa loo cadaabayaa ilaa maalinka qiyaamaha. saa ayaa loo cadaabayaa. allow qabrigeena ka dhig qabri beeraha jannada ka mida ka dhig. walaalayaal haddaba aan diyaar garowno, aan iska ilaalino fitanka uu leeyahay moobilka internetka. walaalayaal yeena noqon shaydaanka mid caawiya, shaydaanka iyo gaalada dad caawiya yeena noqon. gabadha muslimadda waxaa loo baahay inay xishooto, waxaa loo baahay inay is asturto. sawiradeeda meel kasta in laga arko ma bannaana. runaantiina sumcad xumo iyo sharaf xumo ayay ku tahay. marka walaalayaal fiideo kana aan sheergarayno, aan dadka khayrka ku wadacmimo. dadka ahlu baadilkaba xumaanta way sheergareeyaan, adigana sheergaree khayrka. allah ku barakeeyo. jazaaka allahu khayran.